madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa kulan habka maqalka iyo muuqaalka video conference waxa uu kulan kula yeeshay wasiiru dawlaha horumarinta arrimaha Afrika ee dawladda UK waxaana kulankaasi laga wada hadlay xaaladda magaalada Laascaanood iyo arrimaha doorashooyinka Soomaaliland ugu horeyn madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu wasiirka uga xog warramay arrimaha Laascaanood iyo halka ay xukuumaddu ka taagan tahay sidii xal nabadeed oo waara looga gaari lahaa xukuumaddiisuna ay mar walba diyaar u tahay xabad joojin bilaa shuruuda siday marar hore ay uga dhawaajisay dadka reer Soomaaliland ee Laascaanoodna ay heshiin doonaan mar walba wixii dhacay balse waxa muhiim in beesha caalamku maamul goboleedka Puntland Soomaaliya ku amraan in ciidamadeeda ay kala baxdo gudaha Laascaanood iyo gudaha xuduudaha Soomaaliland taasi oo madaxweynuhu u cadeeyay wasiirka in ay caqabad iyo fidno ku tahay dadaalada xal u raadinta arrimaha Laascaanood ka taagan sidoo kale madaxweynuhu waxa uu ku wargeliyay wasiiru dawlaha in ciidamada maamul goboleedka Puntland ee Soomaaliya Laascaanood ay soo buuxdhaafiyeen isla markaasina ay ujeedadoodu tahay inay jeexaan xuduud qabiyaaladeed taasi oo saameyn doonta wadamo kale oo kamid ah Afrika waxaanu intaasi ku daray in qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ka go'an tahay inuu difaaco dalkiisa iyo sidoo kale xuduudihiisa sida wadamada kale adduunku ay waajibka ugu tahay inay difaacdaan xuduudahooda dhinaca kale madaxweynuhu waxa uu uga warbixiyay wasiiru dawlaha hawlaha doorashooyinka isagoo sheegay in xukuumaddu ay hore u diyaarisay wixii kharashaad ah ee kaga aadanaa doorashooyinka isla markaasina ay hadda diyaarisay kharashkii lagu qaybin lahaa kaararka codbixinta oo sida la filayo bisha June horaanteeda ay qaybin doonaan komishanka doorashooyinka qaranku isla markaasina xukuumaddu ay diyaar u tahay doorkeeda kaga aadan doorashooyinka gaar ahaan doorashooyinka loogu tartamayo xisbiyada qaranka ee 10 sano ee soo socda jiri doona iyo sidoo kale doorashada madaxtooyada dhankiisana wasiiru dawlaha horumarinta arrimaha Afrika ee dawladda UK Mazar Andrew waxa uu xusay in dawladda Ingiriisku ay diyaar u tahay inay Soomaaliland kala shaqeyso doorashooyinka iyo xal u helidda arrimaha Laascaanood ugu dambeyntiina waxa kulankaasi laga wada hadlay iskaashiga dhinaca maalgashiga ee Soomaaliland iyo dawladda Ingiriiska sidii loo sii wadi lahaa waxaana kulankaasi madaxweynaha ku weelinayay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga Dr. Ciise Kayd Maxamuud